السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي سيتهين رمضان مبارك، رمضان مبارك إن شاء الله. رمضان كان رمضان كيسكله إلهي خير إيو عافمات إلهي نو قارسيو إن شاء الله. رمضان كان سان واye guriyasha lagu jiraa karantiina lagu jiraa laakiin waqtiga waxaa laga baahan yahay inaan si fiican usii xafidno waqtigiina meelaha ku qarash gareen laheene normaalka markaa banaanka joognay waxbarasho shaqo banaanka lagu mashquuli jiray laakiin hadda sidii hore in loo soconin waaye saas dartiis insha allah cuduradan waxyaalahan oo socdaan ilaahay caafimaad ilaahay hanoogu bedelo ilaahay dambi dhaaf ilaahay hanagaa dhigo insha allah intii xanuunsan ilaahay ha caafiyo intii caafimaad qabtana caafimaadkoodii ilaahay ha u zaa'idiyo hadduu ilaahay idmo maanta waxaa rabaa inaan oo idin tuso jadwal oo yaris oo samayste jadwalkan oo ah ramadaan ka horaa sameeyey bisha abriil 20keeda saas dartiisa waa sii socday maadaama oo ramadaan oo nasoo dhexgali waa sii wadaa ilaa hadda marka waxaa rabaa inaan idin tuso jadwalkan maxaa waaye buugan jadwalkii iyo sanadkii wixii oo sameeyey inaan ku qoraa jeclahay adi sanadkii wixii sameeyey notebook ma ah keliya waxaa waaye bil kasta bishaas maxaa sameeyey maxaa sameyn doona waa kaay marka jadwalka saana u samaystaa suwixii juzi barkii akhriyo waa calaameeya dhexdiis waa buubuuxinaa iyo galabtii kii oo dhameeyeyna waa buubuuxinaa aad iyo aada marka uu farxaa markaas aan sameeyo maadaama oo bishaan abriil oo bisha ramadaanka oo nasoo dhex gashay marka abriil 20keeda abriil ayaa waxaa bilaabay in oo maalintii in maalintii oo 3 juz maalintii in oo 3 juz aqriyo 3 juz uu aqriyaa hal subaxii juz iyo baraa aqriyaa barka xisib subaxii waxaa aqriyaa juz bar galabtii waxaa aqriyaa juz bar 3 ay isku tahay 3 juz isku tahay xisaabta saan waaye marka saas dartiisa maanta waxaa rabaa inaan idin tuso buugan saan sharxi waxaan gacantii ku qorqoray qalinkan waxaan sharxadan kan koolo waaye inta fiirinina marka maalintii oo 3 juz oo hadda dhameeyo maanta camal tusaale ahaan maanta camal ka soo qaad maanta bisha meen qawaay 24 ma 24 waaye 24 oo malena bisha 24teedii juz barkee saaki waa akhristi haddana afkan uu banaan yahay kan maadaama uu banaan waa idin tusaa kaamirada maadaama ay banaan tahay waxaa rabaa caawa markii dhameeyo mis bacdul afur markaa dhameeyo asina waa buubuuxinaa qalinkeeda qabsanaa kaliya waa buubuuxinaa marka waa hada waxaa joogaa meeshaa joogaa idin tusaa idinka islaab xataa waa saari kartiin waxaa maraaye سورة الكهف مرة قرآن كالبركيسة إمادي الحمد لله الشكر لله ساز درتيس إذن كانوا وحا إذن قوتا لنا هل مر إنا وفريستين حوغها إنا إذن قادتها لغيابا مالين كست إن أو جزء يبر أخرين كرنا لغيابا مالين كست إن جزء يبر إذن كويرتهاي بس مالين كست إن أو 6 جزء أو إذن كويرتهاي لغيابا مالنتا إنا ربتينا لغيابا أو إنا أخرسين 5 جزء عمل maalintii 4 juz qof kasta wuxuu awoodo maalintii meeqa awoodaa hal aayad ma awoodaa hal bog ma awoodaa bog hafkiis ma awoodaa 3 bog ma awoodaa 5 bog ma awoodaa waxaad awoodid jadwala qorane book mise warqad oo caadi iska cadaan A4 mise waxaa haystid book alla book haystid oo notebook ah waa qabane waa xariiqane taariikhda ku qorane insha Allah hadduu ilaahay idmaa dhahe maalintaasi iyo halaas akhrin doonaa halahana samayn doonaa markaad fiirisid quraankii oo dhamaaday meeshaa rabtid markaa imaadid wallahi aad iyo aad u farxiyay saas dartiisa waxaa idinkugu talin lahaa idinkana inaad samaysatiin jadwal oo saan ah أنا waxaa markuu ii dhamaado quraanka insha Allah bishaan ramadaanka dhexdiisa maadaama aan bisha 20keeda oo bilaabay ramadaanka dhexdiisana waxaan isku dayaa inaan idin tuso misawir ahaan mise bogay Instagram-ka soo dhigaa
adii kaliya ma eh ani quraanka waa aqriyaa saana u aqriyaa mise qatara ahay mise wax ma aqriyi mise waa tukanoyaa salaaday fiiriya istustusnimo oo ri'aaynimo ma iga ah saas dartiisa qalad ayaa la ii fahmin kaliya waxaa rabaa motivation ahaan mise adi in isku caawiyo kheyrka waxaa laga yaabaa in oo adi fikradaas kugu jirin oo qof kale oo walaalkaa fikradaas oo siisay marka waxay ila noqotay fikrad fiican waxaan filayaa inaad ka heli doontaan insha allah tan kale taraawiix salaad taraawiixda haddaad awoodaan maadaama oo markaan masaajidada iyo cudurada oo caalamka zaa'id ugu faafi meel lagu tukanayo laga yaabaa inay jiraan gurigiina ku tukan kartiin qolkiina ku tukan kartiin meel alle meeshaad joogtaan aad ku tukan kartiin bacdul afur waxaa idinkugu talin lahaa in okay hadda ka hor video hadda ka hor waxaa dhahey biyaha cabitaankiisa muhiim waaye biyo cabitaankiisa muhiim waaye waa soomanahay laakiin maalinta dhan biyo ma cabi karna maalintii 1 litir bar 2 litir 3 litir halii oo caboogiisna laga rabay haddii oo cabi karin waxaa samayn karnaa afurka iyo saxuurta inta u dhexeyso haddii seexanaysid okay laakiin haddii oo seexanayn oo soo jeedid biyo badan inaa caboogiis isku daydid haddii oo qof seexanaya oo hurdaa ilaa saxuurta kadib soo kacay saxuur soo kacay haddaad tahayne adi afurka naftirkiisa waxyaalahan oo aashtada iyo qaxwada iyo shaaxa badan caboogiisa okay waa cabe wax yar cabe laakiin zaa'id iskuma badanaysid biyo caadi cabitaanaa cabi kartaa biyo caadi caafimaad zaa'id ay u leeyihiin biyo caadi inaa cabdid aad iyo aad ay muhiim u tahay saas dartiisa biyaha cabistiisa ilaaliya inaad biyo badan cabtid isku daya quraanka akhriskiisa waa sheegay tan kale waxaa idin sheegi lahaa cuntada afurka markii la cunaa okay Soomaali aan ahnay bismil alla meesha joogno waa jecelnahay sambuus inaan cunno ani xitaa waxay sambuus male laakiin hadda college ku jira laakiin waxyaalo oo kaliya sambuuska mee burka waxyaalo oo saliid lagu kariyay bardhada oo la dubiyay kuwaas xitaa in oo zaa'id la iskaga ilaaliyo tan kale asxaabay waxaa kale idin sheegi lahaa in oo afurka kadib markii oo cuntada la cuno kadib toos inaa u seexanin mise inaa fariisanin xarakaad iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaa samayn kartid kaliya ugu yaraan guriga dhexdiisa mise guriga hortiisa haddii ku socon kartid socod xarakaad yaris dhaqdhaqaaq inaad samaysid aadan kugu talin lahaa insha allah waxaa kala jiro normaalka waxaa jira qof oo wax qoroowo oo jecleenin mise in oo adi bileen inaad samaysatid maalintaas maxaa samayn doontaa bishaan dhexdiis maxaa samayn doontaa sanadkaa maxaa samayn doontaa dad oo jecleeninaa jiro in oo waxaa sameeyaan saas dartiisa waxaa laga yaabaa dadkaas maskaxood inay ku jirto okay maanta isbuucan inay kan sameeyaa laga rabaa mise bishaan saan inaa sameeyo maskaxdaa inay kugu jirtaa laga yaabaa laakiin ani saa jeclahay saan waaye qoro waa jeclahay haddii oo waxaa aaminsanahay haddaan qoro maskaxday xoogaa way faarujismeye markay faarujismo kadib wixii oo sameeyowiis oo rabo aa sameynoyaa marka saas dartiisa ana hadda qur-aankay saanaa samaystay aad iyo aaday igu farxad badan tahay wallahi been idin sheegayay maalin kasta mise waqti kasta oo ani madoogan qalinkan saan ugu buuxinayo waxay ii tahay farxad kale oo gooni ah farxad kale oo zaa'id ah mise saadhaha ma ogi adi waajibaad waxaa lagaa rabay wixii oo la iga rabay amaanta soo gudanoyaa wixii la iga rabay aan sameynoyaa marka saasaa aaminsanahay insha allah ilaahay ramadaankan ajirkiisa khayrkiisa tawfiiqdiisa ilaahay hana waafajiyo intii caafimaad qabo ilaahay caafimaadkooda u zaa'idiyo intii xanuunsan ilaahay ha caafiyo رمضان